dardaaran hooyo waxay ku bilowday sidan wiilkaygiiyow ama gabadhaydii hooyo haddaan weynaado oo hadalku idhiba ii sabir oo hay dhibsan waayo aniguba adigoo hadli karin ayaan kuu sabri jiray haddaan cuntada cuni waayo haygu qasbin markaan u baahda anigaa cunaye amba kuguma qasbi jirine haddaan su'aal kugu welceliyo si deggan iiga jawaab oo hay dhibsan adiguba waxaad i weydiin jirtay su'aalo badan kumana dhibsan jirin waana kuu sabri jiray haddii aan socon kari waayo hay dhibsan oo ii tartiibi amba sidaas baan kuugu tartiibin jiray haddii marada aan xidhan kari waayo si tartiiba oo naxariis ku jirta iigu xidh anigaba kuma dhibsan jirin si tartiibana waan kuugu xidhi jiray haddii suuliga aan awoodi waayo kaadida iyo saxaradana iska dhiqi waayo si naxariisa iiga dhaq hanay dhibsan waayo amba kuma dhibsan jirine haddii aan hadallada badan iyo su'aalaha soo noqnoqonaya kugu dhibo hay dhibsan waxaa laga yaabaa inay khayr badan kuu tahay haddii aan foolxumaado ilkuhu iga dhacaan dhegaha wax ka maqli waayo indhuhu daciifaan lugaha socon waayaan gacmuhu wax qaban waayaan carabku hadalku yareeyo maskaxdu isku dardarsanto saxaradu iska daadato kaadidana sidoo kale sariirta mar walba aan wasaqeeyo hooyo hay dhibsan waayo sidaan ma ahaan jirin xasuusnow inaan ku hayn jiray adigoo saxarada iyo kaadidaba iska tiri karin lugu aad ku socotana lahayn gacmo aad wax ku qabsatana lahayn maskax aad wax ku fahantana lahayn xasuusnow inta aad maanta igu aragtay in ka sii badan inaan kugu soo sabray welibana farxad u arkayey oo aanan maalin keliya ku dhibsan hooyo ha noqon shaqi yacni caasi waalidayn ama midkoodba abaal aan lahayn ee noqo abdi baari yacni abaal badane sidaas baad ku liibaanaysaa aakhire iyo adduunyaba ilaahayow waalidkeena u naxariiso siday noogu naxariisan jireen annagoo yaryar aamiin aamiin